Somaliland maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka tagnaa xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciidan Injineer Faysal Cali Waraabe iyo sidoo kale wakiilka dalka Djibouti u fadhiya Somaliland. xiisada u dhaxaysa labada dhinac ayaa bilaabantay kadib markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciidan Injineer Faysal Cali Waraabe uu mar ula hadlay warbaahinta uu eedeymo culus u jeediyay madaxweynaha dalka Djibouti isagoo sheegay in aanu haba yaraatee dhexdhexaadin karin wada hadal mar kale dhexmara Somaliland iyo Soomaaliya. sidoo kale Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Djibouti uu ka soo horjeedo qadiyadda Somaliland. weerarhaasi oo keenay in uu jawaab kala kulmo wakiilka dalka Djibouti u fadhiya Somaliland Xuseen Cumar Kawaaliye. xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa xisbiga mucaaradka u cid iyo sidoo kale wakiilka dalka Djibouti u qaabilsan Somaliland ayaa waxaan wareysi kooban kala yeeshay Ismaan Cumar Dool oo ka tirsan siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo haatan ku sugan dalka Norway. sidoo kale waxa uu Ismaan Cumar Dool ka warramay jawiga siyaasadeed ee haatan ka taagan Somaliland iyo shirweynaha xisbiga wadani ee lagu soo afmeeray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. wareysigana dhexmaray aniga Ismaan Cumar Dool ayaa waxa uu dhacay sidan. Ismaan Cumar Dool adiga ku soo dhawaanaya xubnaagniisa haddaan su'aasha ugu horreysay ku weydiiyo haatan bal ka waran sidaad u aragto jawiga siyaasadeed ee Somaliland ka jira. aadkan ku salaamay alxamdulillah ala salaam Allah xarigi lagu xiray adigu ka soo tacsiyeeyay adiga iyo had wanaagda waxaan rajaynayaa inaad cadaalad heli doontaan insha Allah. taas waa taas kale jawiga dalka Somaliland waxa weeyaan caruur baad loo safaqaa ciyaaraysa ayuu ka dhigan yahay siyaasadiisa waa la jahayn kari laayo ma jahaysto dadku isku soo ooday markaa jawdi kollayda markaan dadka la jahaynin oo aan dadka la howlgelinin oo dadkaan dariiq la wada qaajinin dadka la iska hor yimaado meel xiriiriya iska hor yimaadaan halkan la yidhaahdo jamaraadka dhagaxa la tuuro ee xashka ku taalla ayaa berigii hore la iska hor iman jiray baa layidhi marka laba wey baa loo kala sameeyey marka halkaasaa lagu dhulin jiro lagu baktin jiro markaa dadka saasaa la isaga horkeeno jawigu waa saasoo kala sawir sidaas uma ku tilmaami karaa. Ismaan Cumar Dool haatan waxa ay waddanka ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka u ciidan Injineer Faysal Cali Waraabe iyo dalka Djibouti in ugu horreyn bal weeraha ay isdhaafsadeen sidee kula muuqatay? waxay ila muuqatay Faysal Cali Waraabe Faysal Cali Xuseen wixii meel aan laga ogolayn inuu taabto ayuu taabtay. beri horena waan sheegay waa kii ninka safiirka Djibouti jooga xitaa u soo jawaabay in baa Faysal inta laga ogolay inuu ku ciyaaro bini aadamka marka ay xiriyin cid walba marka xor tahay ayaa dalka qaranimadiisa la difaaci karaa bariisi dalka la difaaci karaa dowladnimada la difaaci karaa laakiin dadku marka aanay xor ahayn waxbaa loo ogolaadaa qof walba meel baa loo ogol yahay. marka Faysal waxaa laga ogolaya cayda xamar iyo Soomaalida iyo farmaajo iyo majeerteen iyo waxaasaa laga ogol yahay inuu xaggan taabto lama ogola. marka waa kan dabadeed wuu taabtay laakiin Faysal waa nin iisan gabanin oo inay ugu taaban jiray cid kala daayo oo laga baqdo geeska Afrika ama dhulka Soomaalida dadka Soomaalida ku hadla inay ugu cabsi badnaayeen marka Faysal cidna kama baqdo walaa Djibouti walaa xamar walaa Hargeysa cidna Faysal kama baqdo. wuxuu baanu garanay ururso credit ururse oo uu iska daadiyay hadduu credit urursan karayo oo siyaasad iyo garanayo iyo isku hagaajiso ninka ugu xoolaa badan buu noqon lahaa waayo waa nin dhiiran. markaa halka looga jawaabay baad ka garanaysaana inaanu meel loo ogolayn inuu taabtay la taabo meel fog loogama jawaabine Hargeysa dhexdooda looga jawaabay oo waliba loogu hanjabay. marka jawigaasi wuxuu ku dambeeyaa sidaan anagu arko aniga Facebook gaba ku qoreenay maxawislaydu guulaysan doonto waayo cid Djibouti way oran kartaa ma jirto. Djibouti meeshan iyadaaba keensatay mas-uulka imika ina xukuumada Djibouti baaba laga soo saaray Djibouti waa ka ahay in wadanaha Djiboutina intay ka leedahay waa loo fuliyaa iyo waxay tidaahdaba iyadana waxba Djibouti laguma oran karo. markaa Faysal waa nin dhiiran markaa jawigaas wuxuu ku dambaynayaa in aan waxba laga soo qaadin jawaabtii Faysal waa arkay maanta ramaa xoole 24 saacadood baa lagu qabanayo xildhibaanada xoole 24 saacadood dalka laga saaro 24 bilood baan dalka laga saari karin. way Ismaan maxaad u malaynaysaa bay noqon kartaa in ay ka soo baxday xukuumadda Soomaaliya ama jawaabta laga filiyo xukuumadda Soomaaliya maxay noqon kartaa bay kula tahay?
waa laga aamusayaa cid ka hadlaysa arki maysid wax allaala wax laga soo qaadayaa ma jiro waa laga aamusayaa shuuq cidi odhan mayso walaa wasiir arrimo gudeed baan ka hadlayn walaa mid arrimo dibadeed baan ka hadlayn madaxweyne daayo haddaan daalaxba loo raacin faysal isagaa burasida haddii intaa lagu daayo oo ciyaarta imika intaa ku dhamaatay waxaad moodaa in qolada cidaayaro kuulaysa ciyaarta oo rabaaxya ay soo galeen oo rabaaxu taariikho badan ka sheekeeyey waxa weeyaan jabuuti mid waa lagu qasbi karaa mid laguma qasbi karo jabuuti ictiraaf iyo waxaan laga sheekeynayo jabuuti laguma qasbi karo oo ictiraafku jabuutina ma yaallo maraykanna ma yaallo jarmalna ma yaallo waxa weeyaan laakiin jabuuti waxaa lagu qasbi karaa in la yidhaahdo derisnimada iyo wada dhalashada iyo wanaagga ilaali in la yidhaahdo oo aynu laba ummadood oo isku agabaynu no soomaalidii kale annagaana kaa xigneena ixtiraam jabuuti taa xaq baa loogu leeyay laakiin ma ogolo jabuuti taa waayo way yasaysaa meeshan way yasaysaa oo waxba uma aragto markaa iyo sidaasaana lagu jirayaayo waa laga aamusaya waad arki doontaaye cidina laba xali waxba isweydiin mayso intii uu hadlay safiirka dalka jabuuti u qaabilsan somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa dowladda somalilan laftirkeeda dhaliilo ayay bulshada u jeedinaysaa iyagoo isticmaalaya baraha bulshada maxaad u malaynaysaa inay noqon karto xukuumadda somalilan inay arrimahan u dhexeeya xisbiga u cidiyo iyo safiirka dalka jabuuti ee hargeysa in iyada ay kasoo geli karto ay dhaliil ku mudan karto de horta dadku way kala qaybsan yihiin oo midaysan baa wax isku raaca dadku way kala qaybsan yihiin oo dadka de waa la kala qaybiyey inkastoona qaybinta u wanaagsaneyn ciddii kala qaybinaysa dalka iyo dadka dadkana aanay u wanaagsanayn dadkuna way isku raaci karaan oo de wax xumaana oo de qarannimadooda ama dadnimadoodaba lagu sameeyey dadnimada imika wax lagu sameeyey qarannimo badnaa meesha laga hayaa ma jirto laakiin dadnimadaa meel lagaga dhacayo nin weynoo guddoomiye xisbi sheeganaya dee ma sheeganaya oo xisbi dhan hogaaminaya dalka ugu weyn buu nin wakiilo weliba safiir caadiya ahayn oon somalilan aqoonsanayn oo wakiilo meesha loo soo dirto weliba sirdoona ayaa uga dhexan jiray markaa waxay ahayd in dadku dad israacsan iyo dawlad israacsan inaada waardi adeer maxaad noogu hajaysaa dhaaf yaad na biilisaa lacag baad na siisaa laakiin lama odhanayo weeye sida aan kuu sheegin waxba laga soo qaadi maayo hadalkayga rumayso wax allaalo wax laga soo qaadayaa deera may hirfiin arrintuna saas bay halkeedaa iska tiirsanaanaysaa markaasoo wax kalun baa laga sheekayn doonaa waa dadkii meel kale laga fudfudinaya meel kale laga fudfudinaya ama cismaan dhowaan waxa magaalada burco xarunta gobolka togdheer lagu soo afmeeray shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga wadani shirweynaha kamaad soo qayb gelin bal sideed u arkaysay siduu kula muuqday shirweynahaas xisbiga maxaase keenay inaad ka baaqato aniga odaniyo horta waa ku jira golaha dhexe kamid baana xubnaha golaha dhexe halkaa lagu ansixiyey laakiin de kolley qof may ahayn waajib may ahayn oo kooramkuna uu buuxsanayey inta la doonayey asarna ma ahayn inuu been yimaadooyin qof kasta xubin kastaaba inuu yimaado muuna ahayn shirweyne xisbiga guud muu ahayn shirweyne golaha dhexuu ahaa shir dareenka dadka ee burco aada usoo jiitan uu ahaa magaalada burcana aada looga soo dhaweeyey dhammaanteed iyo gebi ahaanteedba rajana ummadda tusay dee inuu jiro xisbi u maqan iyo dad u maqan oo xisbiga tacab dee inay geliyaan markaa shirkaas si fiican buu usoo dhamaaday shirweynihii guud ee xisbigaas 8 bilood dhici doona insha allah kolley dee dadka kasoo qeyb galayna haddii ilahay nagu simo waa kamid noqonaynaa markaa so far xisbigaasi waxa weeyaan si fiican ayuu wuxuu wadaa hoosta waxaa laga wadaa in ummadda la mideeyo in ummadda la isu keeno iyo dee in laga baxsado in uu dhaco fawda inay dhacda ayuu xisbigu ka shaqaynaya in dalka fawdo la geliyo oo laga dheeraado inay fawda dalka ka dhacdo ayaa laga shaqaynaya inkastoo xukuumadda meesha joogtaa fawdo doonayso haddana waxaa laga aada iyo aada loogu dadaalaya dalku inaanu fawdo gelin ayuu xisbigaas siyaasadiisa oo cade ay tahay inaanu dalka wax fawda aanu gelin oo bakeeri ka jabin dalka bakeeri way cismaan cumar dool maxaad xog ka haysaa arrimihii ceelaf weyn iyo nabadeyntii deegaanadaasi ee lagu howlanaa waxaan xog ka hayaa dadkii halkaa gobolladaa ku noolaa
iyo aad hadday noqoto madaxdoodii oo boqor cusmaan maxamuud buurmadooda u horeeyo kow ka yahay waxay wadaan wanaag ayay ka shaqaynayaan in dadkaa la walaalaysiiyo in gacanta laysu saaro shirar hoosaa hargeysa ka socda beelihii labadii qolo ama baxo la odhan jiray ee meesha nimankii baha la odhan jiray meesha isku dagaalamayey ee ilaahay fidnada dhex dhigeen walaalo ahaa ee iswada dhalay ayaa si face to face ay isu soo hor fadhiistay waxa weeyaan arrimo yaryar baa ka xidhan oo odayaal ka xidhxidhan oo dawladdu ka haysato iyaba imaka wadaan in la sii daayo guud ahaanna labada beelood ee waaweyn ay kasoo jeedaanna dhabarkay ka riixayaan in nabadi meesha ka dhacdo oo dadkaa la walaalayo waayo dani kuma jirto in dalku handikaab noqdo oo dhinac qallalaado dalka haddii ay fawda bari oo dhan ka jirto dalka dhinacbaa qallalaanaya markaa dalkuna weligii transparency ma noqonayo ma noqonayo cismaan waxaad carabka ku dhufatay in labada beelood ay kasoo jeedaan in jufooyinkii in colaadu ku dhex maraysay ceelaf weyn laftirkooda ay arrintan dabada ka riixayaan iyaga shirweynii ku balansanayeen inay iskugu yimaadaan shirweynihii wuu baaqday goormaa loo balansanyay waxaa loo balansanyay horta waxa ka horeynaya shirweynahaa sidii aad maqlaysay ee labada qolobo ay sheegeen in horta la joojiyo colaadan xun ee saqajaannimada ah ee soo noqnoqonaysa ee munaafaqaduna ku jirto munaafaqadii inay meesha ka baxdo ayaa lagu wadaa in nabadda halkaa laga dhaliyo oo xalay ku hara ay noqoto oo dadkaa gacanta laysu saaro ayaa la wadaa qurbajooggiibaa wada qolqoljooggiibaa wada odayaashiibaa wada markaa marka arrintaasi waa nabar ku yaala dadka dalka ku nool oo dhan waa anigan kula dalku transparency ma noqonayo bari ay wax ka oogayin colaadi ka jirto dalku ma noqonayo dal cadaalad la dooni karo oo la fikiri karo waayo dadku hadduu dhinac qallalayay qofku caadi uma fikiri karo dhankan kale markaa dalku de maaha galbeed dalku hargeysa iyo berbere maaha iyo gabiili iyo ka dagaalayay dalku bari iyo galbeedba uu ka xigaa intaa markaa dhan walba waa in dadka jooga aan la kala qaybin oo aan laga dhigin arrintooda qaybiyo xukun waa inay noqdaan dad is-og inay isku community yihiin isku deegaan yihiin isku dan yihiin iyagu dagahooda ka wada tashan kara cid kastaaba reer hargeysa waysaa laysu organis gareeyo oo reer hargeysa ay gartaan inay isku dan yihiin reer burca gartaan reer sanaa gartaan reer ceelaf weyn gartaan ummadaha sidooda waa in la noqdo oo gobol loo xisaabtamo oo dadka qabyaaladan la geliyey oo xun in laga saaro weeye waay cismaan haddaan su-aasha ugu dambaysa ku weydiiyo 2 sannadood ayaa haatan ku dhowdahay muddaxileedka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu dalka hogaaminayay ilaa haatan maxaa kaaga baxay hogaamintiisa ilaa haatan waxaa iga baxay madaxweyne muuse biixi cidnaba inaanu waxba inuu cabanayaa iga baxday inuu yahay nin isagii cabanaya nin dunida waxa u daran adduunka waxa u daran nin ummadani ka cabanayso isaguna ummadii ka cabanaya markaa isagaana laga cabanaya isagaa odaygii dalkaa isagaa madaxweyneya laakiin weli isagaa caban waxa iga baxday oo waxa la yidhi nin bay daraawiishti reerkiisii laysa arrintiisii dishay isagiibaa waxa la yidhi baxsadoo nabad galay waxa la yidhi sayid maxamed cabdulla xasan baa yidhi ka daba taga isagoo geed fadhiyay daraawiishta u timid wuxuu ku yidhi daraawiisha weli waxbaa kuu haray ma waxba idin hadhay yidhi daraawiisha weli ma waxba idinka maqan ilay 10 aan dhalina waa 8 aan dhalina waa dishay waad qaadatay geela waa dareersateen loodii waa kaxaysateen yacni wuxuu ujeeday macasisheeda yar baa daba socotaan muuse dalkii madaxweyne ka noqoy damxaan wuxuu ka cawdaa madaxweyne ka noqoy wix u hadhay anigu garan maayo oon ahay inuu yidhaahdo dadka musaamaxa oo uu yidhaahdo intaa yareeya hadhee odaynimaan idinku maamulaya maxaa idinla tahay inuu yidhaahdo dadku annaga wax la weydiiyo ummadda wax weydiiyo oo kuwa cabanaya wax weydiiyo dadka usoo fadhiisto oo ka daayo ismaroojin kariyo fartan murdisada ah marka hadlayo uu ka daayo isagii inay kaahin joojiyaan snamkanay keligood sheegtay snamkii ay yidhaahdeen ilaahay ka markhaatiga ahaa 94kii boorame labadoodu yidhaahdeen ma jirto oo wareejiso somaliland bay dhashay inay cigaal ku keeneen oo lagu aqbala sidii snam lagu aasay waa kii boorame snam xabaasha lagu rido lagu aasay inuu maanta maxamed kaahin kaga qodbadeeyo berbera snam baan ayaan ahayd
ama asagii labadooda qori sheegtaan weli way cabanayaan markaa waxaan leeyahay anigu xabashada joojiya oo dadka odayaalba u tiiri madaxda u tiiri ummadda madaxnimo ku maamulo nin walba ha u jawaabina midda kale islaan qof wixii meel ka hadlaba adigu ma waxaad aragtay nin dabadda taagan oo roob ku da-ayo dhaxani hayso dabadda ka qaylinayo nin guri ku jiro waxay tama ayaad moodaa de inay yihiin oo waxaad moodaa dadkaa dabadda jooga oo de iyagu xukunka doonaya kusoo socda iyagaaba ka daran oo daaqadaha u soo taagan yihin halka odhan waayeen waar intay roobka halka odhan waayen waa guriga aynu hagaajino markaa markiiba way usoo fadhiisanayaan hadday ciidan ka hadlayaan hadday jaamacad la hadlayaan hadal dhiifabay ku hadlayaan oo obagowanda ah norwejigu waxay yidhahaan bukaan socod ayay yidhahdeen kelmadda obagowanda la yidhaahdo waxa weyaan hadal bukaan socda bay ku hadlayaan meeshay ka hadlayaan hadal horumara hadal dadka barwaaqo u sheegaya hadal dadka u sheegaya xabadbaa madaxa hebel kaga dhaxday hebel iyo hebel baa colaha aniyo hebel baa tallawnay cadaab baanu soo gallay waxamaanu marnay adeer haddaba imika imin wixii waa laga yimid oo dad kalaaba dhasho waxaan aan garanaynin ummadda ku maamula odaynimo arrintaasaa daga gaadsiinaysa hadday dhegeystaan